بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند ما باخيارتا wada nagala xidhiidhay halkani waa Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan soo gaadhnaa intii aan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada oo aynu alaaba ku soo qaadano warbixinaadka xiisaha badan leh qoraa wargeysada ka soo baxa dalka iyo waliba caalamka intiisa kale barnaamijka waxa alaaba idin la socotiisa sidoo kale isku soo dubarida anigoo Nashaad Farxaan Caliya aan soo qabta daawadayaal warbixinta u horeysa barnaamijkeena dawladda Mareykanka ayaa shaacisay dadkii xogta siin jiray Ruushka warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa dawladda Mareykanka ayaa aqoonsatay dadkii Ruushka ahaa ee lagu eedeynayay inay ka dambeeyeen xatooyadii dhanka internetka ahayd ee ka dhacday ka hor doorashadii uu ku guuleystay Donald Trump ee ka dhacday bishii November sanadkii hore sida ay warbixinta ku sheegeen dadkaasi oo aan weli magacyadooda la sheegin ayaa lagu eedeynayaa inay macluumaad email ku jiro xisbiga dimuqraadiga laga haday la wadaagay baraafafisa ay isku dayeen in Donald Trump loo codeeyo Ruushka ayaa diiday inuu wax lug ah ku lahaa arintaasi ninka isagoo aasaasay bartani lagu faafiyay sirta ayaa isna sheegay inaysan Moscow ahayn meesha uu ka helay jimcaha ayaa Trump la wadaagi doona eedeymahaas sheegaya in Ruushku uu faragelin ku sameeyay doorashada Mareykanka arintaasi oo shaki ka muujiyay qoraal badan oo Twitter-ka ku soo qoray toddobaadka soo socdana waxa warbixin loo soo bandhigi doona dadweynaha Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa u soo jeediyay madaxweynaha la doortay Donald Trump inuu isbedel la yimaado wuxuuna dhaliilay weerarka uu ku hayo laamaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay caqli la'aan tahay in madaxweynaha la doortay aanu aaminin laamaha sirdoonka ee dalka Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa warbixintani ku sheegay waraysiyo uu siiyay warbaahinta haddii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno markana soo qabto warbixin uu wax ka qoray wargeyska dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa 5 daqiiqo oo qofku socdo xilliga uu ku jiro shaqada waxa ay keentaa faa'iido caafimaad oo aad u weyn daraasad cusub oo ay dhawaan soo bandhigeen kooxda dhanka caafimaadka ayaa lagu sheegay inay qofka shaqaynaya faa'iido ugu jirto inuu muddo 5 daqiiqo socdo inta uu shaqada ku jiro khubradana ayaa sheegaya in fadhiga badan ee qofku fadhiyo goobtiisa shaqada ay keento inuu khatar geliyo xanuuno badan oo ku keeni karo sida xanuunka macaanka waxayna khubradani sheegeen in markasta oo qofku socdo uu si joogto ah u gubo cuntada badan ee ku jirta jirkiisa sidoo kalena uu dibadda u soo isticmaalka tamar badan oo ku kaydsan jirkiisa waxayna kooxdani ku mareen kormeer xafiisyo kala duwan oo ay waraysiyo la yeesheen waxayna shaqaaluhu sheegeen inay dhibaato caafimaad kala kulmaan fadhiga muddada dheer ay fadhiyaan iyagoo waliba ay ku siyaado khatarta iyo inay ku sigtaan inay qaadaan xanuunka macaanka khubradana oo ka socday jaamacadda caafimaadka ayaa ilaa 30 qof oo ay baadheen xaaladahooda shaqeeya inta ay fadhiyeen dadka ayaa la eegayaa inta ay fadhiyaan maalintii xaaladooda caafimaad iyo sidoo kalena sida ay u gubaan tamartooda ku kaydsan jirka iyadoo sidoo kalena la eegayo waxa ay dadkani fadhiyeen muddo 6 saacadood iyadoo loo ogolaa oo kaliya inay xamaamka galaan tijaabadani labaad ayaa la bilaabay muddo 30 daqiiqo kadib iyadoo loo ogolaaday inay dhex socdaan goobaha shaqada waxaana loo ogolaaday inay muddo 5 daqiiqo dhex socdaan
shaqada dhexdeeda goobta ay shaqadu ka socoto saacad walba khubradani oo u waramaya wargeyska Daily Mail ka soo baxa Washington oo warbixintani uu ka soo xigtay wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa qormadana ayaa lagu sheegay inay dadkaasi tijaabiyeen sida uu yahay dhacaanka keena fikirka badan sidoo kalena sida ay tahay awoodooda tamareed waxayna sheegeen inay ogaadeen daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno markana waxaan idin hayaa warbixino ka faaloonaysa dawlad kamid ah wadamada Carabta oo mamnuucday haysashada xayawaanka libaaxyada iyo shabeelada warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa isutagay Imaaraadka Carabta ayaa mamnuucay in guryaha lagu haysto xayawaanaadka duurjoogta sida libaaxa iyo shabeelka dadka qaar ee degan dalalka khaliijiga ayaa haysta xayawaanadan laakiin hadda waxay qatar ugu jiraan xabsi iyo ganaax xayawaanadan ayaa sawiro laga qaaday iyagoo jidadka maraya markii la soo galiyay baraha bulshada sawirada qaar ayaa libaaxyo ay saarnaayeen baabuurta gadaashooda filin la arkayay bishii Oktoobar ayaa muujinaya 5 shabeel oo jooga xeebta Dubai mas'uuliyiinta ayaa ka walaacsan qatarta ka iman karta xayawaanadan sida xorta u socda sharciga cusub ayaa mamnuucaya haysashada xayawaanka duurjoogta ee qatarta ah xayawaanadan ayaa hadda lagu hayn karaa oo kaliya beerta xayawaanka xarumaha lagu xanaaneeyo ama daraasaadka lagu sameeyo oo kaliya oo aad u la yaab badan waa caadooyinka aadka u adag guurka marka loo eego dunida dacaladeeda warbixintaasi waxa ka faaloonaya wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa dunida aynu guudkeeda ku noolnahay arrimaha ugu la yaabka badan ee guurka waxa kamid ah dalka Latin America oo marka uu ninku doonayay inuu guursado gabadha uu tagay aabaheed uu rabo aabaheed ayaa uu shardiga ku xiran yahay in xayawaanka badda ku jira ee nibiriga uu ilkihiisa u keeno ninka ayay ku qaadataa waqti badan sidii uu arintaasi u sameyn lahaa waxaana la sheegay inay arintaasi ula jeedaan in la xaqiijiyo inuu kalgacal runa u qabo guurka iyana rag ku degdegin furitaanka gabdhaha ay guursadaan dalka Mongolia ayaa isna habeenka arooska iyo caruusada digaag yar u keenayo kuwaasi oo ay qalaan labadooduba markaas ayaa la eegayaa beerkooda hadii uu noqdo mid wanaagsan oo caafimaad qaba sidaas ayuu ku dhamaada oo arooska lagu bilaabaa hadii kale waxa la cayimaa maalin kale oo aroosku dhacayo iyagoo arintaasi u arka faalka wanaagsan ee arooska
akhyaarta awada nagala xidhiidhay weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni xiisaha iyo xulashada wargeysada oo idinkaga imanaya Star TV xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada Hargeysa aan soo qabto daawadayaal warbixinta aan idin hayo dalka Mareykanka oo buugooda argagixisada ku qoray wiil yar oo u dhalay hogaamiyihii Ismaan bin Laden warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa Ismaan bin Laden ayay dawladda Mareykanku ku dartay liiska dadka ka midka ah kooxaha argagixisada oo ay baadi goobayso wiilkan oo u dhalay hogaamiyihii hore ee kooxda Al-Qaacida ayaa mudooyinkii dambe ka soo muuqanaya filimaan ay soo shaaciyeen kooxda Al-Qaacida oo lagu dhiirigelinayo la dagaalanka Mareykanka iyo xulufadiisa wiilkan ayaa lagu arkay laba filin oo Al-Qaacida shaacisay sanadkii 2015 iyo 2016 aflaantaasi oo kuwa loogu talagalay taageerayaasha kooxdiisa oo loogu baaqayay weerar la beegsadaan Mareykanka ayaa u arka wiilkan uu dhalay Ismaan bin Laden mid loo diyaarinayo in mustaqbalka ka mid noqdo hogaanka kooxdaasi wiilkan Xamse ayaa kamid ah 20 caruur ee uu dhalay Ismaan bin Laden balse lagu sheegay inuu ahaa wiilkii uu ugu jeclaa hogaamiyihii Al-Qaacida waxaana wiilkan laga kaxeeyay aabihiis Ismaan xilli uu da'yara si loo tababaro Mareykanka ayaa bishii May sanadii 2012 weerarkii dhacay gudaha dalka Pakistan ku dilay Ismaan bin Laden sida ay sheegeen meydkiisana ku tuuray badda Carbeed haddii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno markana aan soo qabto khubaro ka socotay jaamacad ku taala dalka Talyaaniga oo sheegay in caadisiga khudradda amaba cunisteedu ay yareyso cimriga dadka warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa khubaro dhanka sayniska oo dhalatay wadanka Talyaaniga kana tirsan jaamacadda Milan University ayaa soo saaray daraasad ay ku sheegeen in khudaarta oo si joogto ah loo cunaa dheerayso cimriga dadka khubradana ayaa sheegay inta ay tijaabooyin kala duwan ku sameeyeen intii ay wadeen daraasadan sidoo kalena ay dib u daraaseeyeen daraasado hore oo la sameeyay kuwaasi oo salka ku hayay faa'iidooyinka ay khudaartu u leedahay waxay khubradani sheegeen in gaska ay ka samaysan tahay khudraddu uu yahay mid ka ilaaliya unugyada dhalinyaranimo ee dadka kaasi oo kamid ah waxyaalaha cimri dhererka qaybta weyn ka qaata khubaro kale oo iyaguna ka socday wadanka Mareykanka oo warbixin dheer ku daabacay wargeyska Washington Post oo qormadani ka soo xigtay wargeyska Dawan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay khudaartu faa'iido badan u leedahay dhanka daada iyagoo intaasi ku daray in daraasada ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dadka khudaarta aadka u cunaa ay dhaafaan daadooda 65 sano khubaradan reer Talyaaniga ayaa sheegay inay laba kooxood ku tijaabiyeen khudaartaasi iyadoo kooxdii la siiyay khudaarta leh gaska ama baganka halka kuwii kalena aan la siinin wax khudaara waxayna sheegeen in kooxdii khudaarta la siiyay ay ka caafimaad badatay kuwii kale mudadii ay cunayeen khudaarta ayay sheegeen in dadka cuna khudaarta kala duwan maalin walba ay noqdaan kuwa ugu caafimaadka wanaagsan ama ugu caafimaadka fiican halka dadka kalena ay waxyaalaha macdanta leh khudaartaasi ku jirin ay iyagu cunayeen
haddii aan daawadayaal warbixintaasi intaa kaga nimaadno markana aan soo qabto warbixin ka faaloonaysa laabtoon leh 3 shaashadood kaasi oo la daafray ama la soo bandhigay warbixintani waxa ka faaloonaya mar kale wargeyska war sugan ka soo baxa magaalada Hargeysa shirkadda samaysa kombiyuutarada gameka ayaa shaacisay inay soo saarayso laabtoon leh 3 shaashadood waxa ay arintaasi ku daafureen xarunteeda tiknoolajiyadda ee dalka Mareykanka waxa ay ku sheegeen inay kombiyuutaradeedu ay yihiin nooci ugu horeeyay ee caalamka 3 shaashadood lahaada laabtoonkan ayaa leh 2 shaashadood oo dhinacyada kaga yaala iyo mid ku taala dhexda waxayna u soo bandhigayaan hab automatically mid kamida khubarada dhanka tiknoolajiyadda ayaa amaanay qaabkan cusub ee shirkadu samaysay shirkadda ayaa lagu amaanay inay soo saarayso kombiyuutarkan aadka u qiimo badan leh dalka Ruushka oo bilaabay inuu yareeyo ciidamadiisa jooga dalka Suuriya warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska war sugan ka soo baxa magaalada Hargeysa dawladda Ruushka ayaa bilowday inay yareyso ciidamada militariga ee ka jooga dalka Suuriya madaxa militariga ayaa sheegay in si waafaqsan go'aanka taliyaha sare ee ciidamada Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa wasaaradda gaashaandhigga Ruushka bilowday yareynta ciidamada jooga Suuriya waxa ay sheegayaan in markabka diyaaradaha dagaalka qaada iyo maraakiibta kale ay weheliyaan noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee ka baxa waxa la sheegayaa inay xulufo muhiim ah u ahayd madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad inta uu socdo dagaalka sokeeye burburiyay dalka Suuriya ciidamada Ruushka ayaa ay muhiim u tahay in kooxda mucaaradka laga saaro magaaladaasi bishii tagtay guusha ugu weyneed ee u soo hoyatay ciidamada Moscow xabad joojinay dhex ka dhigtay ciidamada dawladda iyo qaar kamid ah mucaaradka ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalo wada hadallo nabadeed oo la qabanayo dhamaadka bishani iyo baraf ku haybsaday qaybo kamid ah qaaradda Yurub warbixintani waxa ka faaloonaya wargeyska war sugan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa waqooyiga iyo bartamaha qaaradda Yurub ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemay qabow iyo isbedel dhanka cimilada waqooyiga Yurub ayaa kamid ah goobaha sida weyn looga dareemayo qabowga iyo meelaha qaarkood oo gaaray 45 waqooyiga dalka Finland waxa uu sidoo kale baraf ka daaya qaar kamid ah dalalka bartamaha iyo koonfurta Yurub sida gobolada ku yaala bartamaha dalka Italiya oo dhamaadkii sanadkii hore ka dhacay dhulgariir ayaa kamid ah deegaanada uu ka daayo baraf cimilada si xumaanaysa xilliga jiraalka ayaa la filayaa inay sii socoto toddobaadyada soo socda qabowgani ka jira Yurub ayaa ku soo beegmaya xilli dadaal badan qabowga ka jira Yurub ayaa ku soo beegmaya xilli dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika ay hayaan abaaro iyo biyo yaraan baaxad leh
dhammaan baa khiyaarta hawada nagala xidhiidhay qodobkaasi waxa uu guniya gabagabo ahaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada oo idinkaga imanayay Star TV xaruntiisa oo ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal barnaamijka alaaba waxa idila socodsiisa sidoo kalena isku soo dubarida anigoo Nishaad Farxaan Caliya dhanka kamarada muuqaalkan iyo aadka oo quruxda badan leh waxa soo rageliyay Cabdiraxmaan Daacad farsamada barnaamijku waa injineer Xuseen Cabdi Fataax dhamaantii anagoo isku duuban tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tageynaa